tababarkan ayaa soconayay muddo 2 cisho ah waxaana dalada Uniinta ay u qabatay qaar ka mid ah suxufiyiinta gobolka Togdheer xubno ka socday arrimaha bulshada. Tababarkan ayaa lagaga hadlayay takoorka lagu sameeyo dadka laga tirada badan yahay sidii ay saxafiyiintu ay codkooda kor ugu qaadi lahaayeen dadka jilicsan. Tababarkan ayaa waxa bixinayay Barasare Axmed Muuse Ismaaciil oo ah professor wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Burco isla markaana ah rugacada saxaafadda muddo dheer ku soo dhex jiray. ugu horeyntiiba waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha dalada Uniinta Zainab Yuusuf Cabdi, Professor Axmed Muuse Ismaaciil oo ah professor ka bixinaya tababarkani. barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay sida saxaafaddu ula shaqeyso dadka aan meel dheer gaarsiin codkooda, dadkaas oo ah ay ka mid yihiin haweenka, dadka naafada meel kastaba ha ka ahaadaan naafe iyo dadka dee lagama tiro badna ee la leeyahay anigii waa laga tiro badan yahay. waxa loo baahan yahay inaad ma garanaysaa dadka si kastaba aad siisaan ahamiyad gaar ah in ma garanaysaa had iyo jeer waxay ka hadlaan siyaasadda, inay ka hadlaan horumarka dadkaas nooc kastaba ha u ahaatee. qof curyaana markaad aragto waa inaad ahamiyad gaar ah siisaa, maaha inaad siyaasiga uun daba cararto waa tiraahdo siyaasi uma wareysanaya. tababarkana sidoo yahay uga faa'iideysitaan kamida dad maxay ahaatay laxaadka wax ka qaba oo iyaguna aan bulshada si toosa ula wadaagin wada tashiga iyo maxay ahaatay go'aaminta iyo gudoominta intaba suxufiyiin ahaan in laga qayb qaato sidii bulshadaas looga qayb gelin lahaa in iyaguna heli lahaayeen war sugan oo saxan sidoo kalena iyagana fariintoodu ay gaari lahayd dhulka talada lagu gooyo. idinkana waxaan jeclaan lahaa runtii inaynu sidaan aynu hadda nahay wax ka bedelo oo aynu taabano xaqada oo runta gaadhno oo aynu halkii aynu taaganahay inuu ka dhaqaaqno. dabcan qofku inuu subaxii soo kaco oo isagoo curiyo ayaa ka wanaagsan in uu wax bisil oo shir jaraa'ida waxa ka fiican inuu helo mid isagoo curiyay oo maskaxdiisa maalay oo erebixino fiican u adeegsaday, waayo xataa adiga ayaa ku dhismaya aqoon ahaan. waa seminar runtii aad iyo aad u fiican waa uga mahadnaqaynaa mar labaad Uniinta oo iyadoo soo qaban qaabisay qofkan codkiisu meel dheer gaarsiiya. suxufigu markuu shaqadiisa ku doonayo waxa laga yaabaa challenge badan, caqabado badan ka yimaada. war ayaa inta badan la daawadaa, maaha warku muhiim maaha, laakiin waxaa muhiima inuu qofku samaysto barnaamij. waxaan dhiirigelinayaa inaad markaa war duubaysaan aydan gaban siduu yahay u soo daaya. wuxuunba isku daydaan warka ah hesheen hadda annaga wax naga sheegaysaan diyaar baan u nahay, waayo wana toosinaysaanoo qaladaadkayga baa saxaysaan. laakiin waxaan xaq u leenahay in cidda wax ka qoraysaan in iyagana weydiisaan warkaa inuu warkaas saxiyay. labada dhinac waa inay eegtaan. warkaagu markaasuu noqonayaa war saameyn badan oo fiican. maayir ku-xigeenka degmada Burco oo soo xidhay tababarkaasi ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay saxaafaddu u leedahay bulshada, isagoona kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarka. seminaarkan qabashadiisa baahi weyn baa loo qabay. Uniinta aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa oo Uniinta marar badan baan aragnay iyadoo dhiirigelinta iyo seminaarada qayb weyn gobolka ku leh. maaha in magac uun la iska qaato urur ama NGO waa in wax loogu faa'iideeyaa qaranka iyo gobolkaba. marka Zainab iyo tiimkeeda waan mahad celinaynaa. mihnadiinani ninka doonaya inuu mustaqbalka gaadho waxaad u baahan tahay de waqtigeeda iyo tacabkeeda iyo samirkeeda iyo dulqaadkeeda iyo saxaafadda dee sharcigeeda intaba runtii inaad ku dadaasho. waa Cabdiqani Cabdilaahi Maxamuud Cabdiqani Baafo, warbaahinta Dalsan TV magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.